ربيع الأول كن أفر بقول أفرتن يكو هجرية تاريخ هجرية إسلام مركان يكون بيجان تاعي لبعتني 6 بش نوفمبر لما كنت سجال يتمن وزارة أوقافتي يعني ما الدين تاع حكومة فدرالك الصومالية وحسوس عرتي وصحافة كان وزارة أوقافتي يعني ما الدين تاع هي مسؤول وعه dalka arrimaha diinta sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 3 farqadiisa koowaad wasaaraddu waxay cadeynaysaa inay dhaxdhaxaad u tahay dhammaan aragtiyada kala duwan ee culimada Soomaaliyeed waxayna kulmisaa culimada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan wasiirku wuxuu sheegay in hadda ay mari doonaan wadiiqooyin kale gaar ahaan dhanka warbaahinta sheekha wuxuu qaban doonaa inta uu dalka joogo barnaamijyo wacyigelineed oo ka bixi doona warbaahinta kala duwan ee dalka wasaaraddu waxay diyaar u tahay in Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ay ku martaqaadi doonto barnaamijyo wacyigelineed xilliga ku habboon isla markaana ay diyaar u tahay soo dhaweynta dhammaan culimada Soomaaliyeed ee diyaar ku ah wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed ee xilligan baahi weyn loo qabo sideed afartankii saac la soo dhaafo Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxa aad loo hadalhayay dooda dhanka diinta ka dhalatay muxaadarada uu jeedin lahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umar taasoo ka hor yimaadeen dariiqada ahlu sunna wal jamaa oo si weyn u diidanaa jeedinta muxaadaradaas rugmadeen biyo badan isla markaana ay dhooba soo duntay wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i ayaa sheegay in deegaanada ku yaala bariga dalkaasi ee Takmaal Barua iyo waliba Tabaja ay dhoobadaasi soo duntay ku dhinteen 29 qof halka 5 qof oo kalena ay ku dhinteen inta u dhaxaysa magaalooyinka Kitale iyo waliba Ladwa kadib markii ay gaari ay wateen u qaaday ama ay qaadeen biyo ka soo fatahay laba webi waxaana sidaasi soo kala sheegay Apollo Okello oo ah maamulaha countiga galbeedka Bokot waxaana intaasi sii raaciyay in 12 qof oo 7 kamid ah ay caruur yihiin meydkooda la soo saaray isla markaana 2 kale oo iyaguna caruur ah oo laga soo saaray goobtaasi iyagoo nool cusbitaalka loola cararay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in howlwadeenada gurmadka degdega oo ka socda qaybaha kala duwan ee wakaaladaha dawladda ee dalkaasi uu diray si ay uga hortagaan in dad kale halkaasi ay ku waxyeeloobaan ay ku jireen dadka magaalada Beledweyne ama guud ahaan degmooyinka ay saameeyeen sida Buulaburta Jalalaq Mahday Jowhar ilaa Balcad ay dhibaatadu gaartay waa ka mahadcelinaynaa gacanta aad ka geysateen annaguna diyaar waxaan u nahay ummadaasi lagu samata bixilay inaan hor kacno howl kasta ee la qabanayo haddii ay raalli ka noqdo mudan baashtore soo dhawaad ku leenahay oo ku faraxsanahay waqtiga noo timid waqti ku habboon ay heeday waxa loo baahan yahay haddii emergency-ga laga baxanayo wax badan laga qabto dalkan gaar ahaan magaalada Beledweyne fatahaadu ku soo noqdeen wax nagala qabtaan rabnaa sidii hal waara loogu heli lahay waxa kaloon aad u soo dhaweynaynaa arinta in la soo furo degmooyinka Hirshabeelle guud ahaan ee cadawga wadooyinka uu joogo in la soo wada furan aad u soo dhaweynaynaa annaguna diyaar waxaan u nahay hawshaas inaan hor kacno annagoo maamulkiya ciidamada iyo bulshada intooda way abaabulayeen diyaarna waxay u yihiin inta kala guurka la gaarin in maaragtay wadooyinkaas la soo wada furo goorsi horeysay ambassador Madeira waxa uu warbixino amaanka la xiriiray ka dhageystay taliyaha ciidamada AMISOM ee gobolka Maxamed Ibrahim Muuse iyo Cornel Cabdiraxmaan Riyaale Xareed iyagoo si gaar ah uga warbixiyay guluf dagaal oo ay doonayaan AMISOM iyo Hirshabeelle inay ku furaan jidka isku xira Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe iyo wadooyinka kale ee ku sii xira gobolada kale diga Congo maamulaha gobolka Kivu ee waqooyiga dalkaasi Nzanzu Kazivita wuxuu sheegay diyaaradda marka ay garoonka caalamiga ee magaalada Goma ay ka duushay wax yar kadib in la waayay wuxuuna sheegay inay dhimasho badan jirto balse wuxuu ka gaabsaday in uu tirada dadka shilkaasi ku dhintay ama ku waxyeeloobay uu sheego warbaahinta maxalligana waxay sheegeen dad ku sugnaa halka ay diyaaradda ku burburtay ay ka mid yihiin dadka ay waxyeelada ka soo gaartay shilkaasi shiralka diyaaradaha ee ka dhaca Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa la sheegay inay yihiin kuwa marar badan dhaca iyada oo shiralka loo sababeeyo badqabka diyaaradaha oo aad u liitay yuriba diyaaradaha oo aan dayactir tayo leh loo samayn diyaaradaha laga leeyahay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaana gabi ahaanba laga mamnuucay wadamada midowga Yurub diyaaradda burburtay ee Donne 228 waxaa leh shirkadda diyaaradaha rakaabka ee BZB diyaaradda oo xilligaasi ku socotay Beeniyo 350 kiiloomitir u jirta magaalada ay ka soo kicisantay
gegada diyaaradaha ee Goma oo ka kicitintay diyaaraddan ay burburtay waxay BBC u sheegeen diyaaradda in ay burburtay wax ka yar daqiiqad markii ay hawada ku jirtay hase yeeshee sababta keentay shilkaasi diyaaradda lama sheegin inkastoo ilo wareedyo kale ay sheegayaan in matoorka diyaaradda ay cilad la soo daristay shaqaalaha gurmadka ayaana laga horgeliyay goobta ay diyaaradda ku burburtay iyagoo dhaawacyada iyo meydadka dadka ku geeriyooday shilkaasi ka soo saaray burburka diyaaradda